بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanihii aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee aan marba la faguraynay, sharxaynay wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga fududeeyo aan si kooban u taabanaynay marba magac kamid ah magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. waxaan ka hadli doonaa hadeertaan magaca al-mu'min. magaca al-mu'min culimadu laba macnaba waa ku sheegeen. macno waxa weeye in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku ammaan siinayo oo nabad uu ku siinayo oo deganaansho uu ku siinayo. macnaha labaadna waxa waaye in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay uu dhabeeye oo uu ku dhabeynayo waxaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka filaysay wuxuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku ballan qaaday. marka maadaama magaca assalaam aan uga soo hadalnay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabadda hayo iyo noocyada kala duwan ee nabadda, magaca hadda aan gacanta ku hayno ee ah al-mu'min, waxaan xooga saari doonaa inuu yahay magaca u dhabeeye oo Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku dhabeynayo wixii uu ku ballan qaaday ama wixii Allah subxaanahu wa ta'ala qawaaniin ah oo uu sameeyay haddii aad soo martid inaad ku heli doonto waxyaabo fara badan oo alla xaggiisa kaaga hirgelaya oo sidii aad filaysay u dhacaya. kelmadda al-mu'min quraanka hal mar bay ku soo aroortay. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. إلهي سبحانه وتعالى مركة المامها إيو مقعيضة أو سبحيه بكمتهي المؤمن أو قرآن كجرته وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وكود بين وحاكم ذا وحاد إلهي كفرنا يسوء خير كأه إيو إلهي سبحانه وتعالى صفوين كيسا وناكسن dabeecadihi ee ku jira magacyadiisa ee ku jira maxaan ku iraahdaa tilmaamihiisa baa waxay ku keenayaan in adiga deganaan ku nooshahay oo qalbigaagu uu kugu degan yahay. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sifooyinkiisa wuxuu ka ilaaliyay inuu dulmi sameeyo waana iska xarimay, adoomadiisana wuu ka xarimay waana meesha aad nabadda ka helayso. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cid walba ka xarimay oo xataa nabiyada laga xarimay inay sameeyaan waxa la yiraahdo dhagar ama qadriga waxa la yiraahdo in qofku uu ballanta ka baxo ama ballanta dhexdeeda uu kugu dhagro. waana meesha aad ka helayso inaad waxa filanaysay in lagaaga dhabeeyo oo haddii qof la heshiiso waxaad filanaysaa heshiiskaas inuu ku fulo. dhagartuna waxay ka timaadaa wixii aad filanaysay cagsigeeda in lagu sameeyo adoo ka seexday oo niyadda gashtay inaan lagu dhagri doonin oo si nabada oo heshiisa oo runa lagula dhaqmi doono. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadiisa waxyaabo fara badan buu u dhabeeyay. adoomadiisa waxyaabo u dhabeeyay waxa kamid ah inuusan asagu dulminaynin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay la dhulma al-yawm fal-yawma la tudlamu nafsun shay'an. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu uga dhabeeyay inaasan adoomadiisu asaguna dulminin ayaga dhexdoodana uusan dulmiga u ogolayn. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga dhabeeyay khalqigiisa iyo ummadiisa inuu badbaadinayo oo uu ilaalinayo maalinta ay u baahan yihiin in la ilaaliyo. qul man biyadihi malakuutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khalqigiisa oo basharka ah uga dhabeeyay markuu u ballan qaado inuu nabad siin doono inuu nabadda siinayo wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khalqigiisa uga dhabeeyay goobaha qaarkood marka ay joogaan inay nabad ku helaan oo xasharaadku nabad ku helayaan oo xayawaanku nabad ku helayaan oo cid walba ay nabad ku noolaanayso. waxa goobtaas kamid ah Makka oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku magacaabay al-baladul amiin. al-baladul amiin waxa loola jeedaa waa meel marka aad timaado wax kasta oo aad ka fiirinaysay lagaaga dhabeynayo adiga inaad nabad ku noolaato, xayawaanku wala jooga nabad ku wala noolaadaan, deganaansho qalbigaaga uu ku nool yahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu gaarsiiyay dadka wanaagsan ee asaga ka dhowrsaday quraankiisa waa ka Ilaahay ku yiri innal muttaqiina fi maqaamin amiin. oo macnaheedu tahay meeshay tagayaan waa meel cabsida laga dhowray, waa meel dhibka laga dhowray, waa meel wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka filayeen oo dhan looga dhabeeyay oo ka bilaabanaysa in looga dhabeeyay inay jannadii galaan. maxaa marka cagsigeeda ah? waxaa cagsigeeda ah waxa laga filanayay oo ah amaano laga filanayay waxaad ballan fuliso inaad fulin doonta. cagsigeeda waxaa la yiraahdaa khiyaano. khiyaanadu maxay tahay? khiyaanadu waxay tahay qofkan wuxuu ku seexday wixii aad ku heshiisay inuu ka dhabayn doono
ama wuxuu kaa aaminay wixii aad ku wada hadashay inaad samayn doonto. markaad ballantii ka baxday waxaa samaysay waxaa la yidhaahdo khiyaano. khiyaanadaasuna marka lasoo koobo waxaa weeye wixii uu kaa filanayay baadan ka dhabaynin. sidaa darteed qofkaas wuxuu ku sifoobayaa qof aan aamin ahayn. maxaa ilaahay adiga kaa rabaa? ilaahay wuxuu adiga kaa rabaa inaad aaminto ood ilaahay rumayso oo ilaahnimo u rumayso. haddaad diiddo waxaa samaynaysid waxaa la yidhaahdaa kufri oo ah gaalnimo. wixii ilaahay kaa filayey oo ahay inaad rumayso baad aqbali weysay, waa diidday. diidmadaasa waxaa la yidhaahdaa kufri. sidaa darteed qofka muslimka waxaa laga doonayaa in anshaxiisa iyo akhlaaqdiisu ay ku jirto hantidiisa, maalkiisa, dhaqankiisa, wax walbo asaga quseeya inuu lahaado waxa laga filanayo wax wanaagsan. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyaa inuu qofka mu'minka ah marka uu dembi galayo macaasida qaarkood markuu sameynayo in iimaanka laga qaado. oo qofkan markuu zinada galayo iimaankii baa laga siibayaa, markaasuu macsidii sameynaya. ama markuu tuuganimadii sameynayo iimaankii baa laga qaadaya. macnaha loola jeedana waxaa weeye adiga markii aad qof mu'mina tahay waxaa tahay qof sameynaya waajibka ilaahay ku saaray, waxa lagaa filaya inaad ku dhaqmayso. marka lagaama filanaynin inaad macsi sameynayso, lagaama filanaynin inaad ilaahay ku caasinayso. saa darteed markii aad macsida galayso waxaa kaa tegaya wax laaleeya wixii lagaa filanayo akhlaaqdaadii anshaxaaga ilaalinaya baa kaa tegaya. markay kaa tagaan baa macsida galaysaa. laakiin dunuubta qaarkood nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inaysan sifooyinka qofka mu'minka kaba mid ahayn. almu'minu laa yakdib. qofka mu'minka ah been ma sheego. waayo beenta maxaa loo diiday inuu sheego? bulshaday fasahaadisaa, bulshaday hallaysaa. wax fara badan oo bulshada jiritaankeeda burburinaya bayna beentu u noqotaa sabab. waxayna ka mid tahay waxyaabaha aan lagaa filaynin inaad ka dhabayn doonto. waayo qofka markii su-aal la weydiiyo waxaa laga sugaayay inuu runta sheego. beentu marka waxay ka soo horjeedaa mu'minnimadii oo waxay keenaysaa wixii la rabay inaad ka dhabayso waxaan ahayn baad samaynaysaa. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha waarasuula watakhunuu amaanaatikum. meeshan waxaa lagu sheegay marka 3 shay oo ilaahay ka reebay mu'miniinta inay khiyaano ka dhex sameeyaan. waa midda koowaad inaad ilaahay khiyaanto waa laga reebay. waa midda labaad inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam khiyaanto waa laga reebay. waxaa kaloo laga reebay wixii lagugu aaminay. saddexduba marka marmarna way israacaan, marmarna way kala nooc bay noqonayaan. waa midda koowaad amaanadu waa wax kasta oo lagu filayay, lagu dhiibtay, aad hayso ama la rabo inaad ilaaliso waajibkaaga shaqada ama waajibkaaga xilka adiga markaad hayso uu ku saarayo. waxaa ka mid ah hantida, waxaa ka mid ah xilka. haddii xil lagu dhiibay xilka laftigiisa waa ammaano. waxyaabaha ammaanada waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam sharcigiisii iyo awaamirtii uu ku faray haddii aadan fulinin dee waad khiyaantay. ilaahayna waad khiyaanto hadda sharcigiisii baad ka dhex baxday. saa darteed waxaa lagaa rabaa inaad noqoto qof ilaahay rumaysan, rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacsan, ummadda ammaanadeediina uu ilaalinayo. waxyaabaha qofka la raba inuu ilaaliyo oo uu waardiyeeyo oo ka dhabeeyo waxaa ka mid ah towxiidka. waxaa ka mid ah inuu waalidkiisa ixsaan u sameeyo. waxaa ka mid ah aabihii iyo hooyadii inuu ixsaan u sameeyo. waxaa ka mid ah inuu dariskiisa iyo qaraabadiisa ixsaan u sameeyo. cagsigeeduna waa marka aad shirki samayso, ilaahay xaqaha baan caabudaya laakiin wax kalaan ku dhex daraya oo meesha ka imaanaysa wuxuu alla kaa filanayay inaadan samaynin. haddii dalkaaga aad khiyaanto oo aad khiyaano ku samayso, maxay ahayd wixii lagaa filanaya? waxaa lagaa filanaya inaad dalkaaga daacad u noqoto. markaad khiyaano dalkaaga ku samayso waxaad noqotay daacadnimadii lagaa filanaya cagsigeedii baa samaysay. waxaa la mid ah xaaraanta. xoolaha laguu dhiibay waxaa xoolo xalaal ah oo la rabo inaad si xalaala ugu shaqaysato, si xalaalana u maamusho, weji xalaalana aad ku bixiso. sidaa darteed qofka mu'minka ah ee muslimka waxaa laga rabaa inuu 3 shayba rumeeyo. waa midda koowaad oo ka dhabeeya laga rabaa. waa midda koowaad ee khayrka iyo anshaxa wanaagsan ay dadku ka filanayaan waa inuu sameeyaa. waa midda labaad ee ballamaha uu galay haddii ay jiraan ballama uu galayna waa inuu fuliyaa, sababtoo ah waa lagaa filanaya. waxaa kaloo lagaa filanayaa oo heerka ugu sarreeya waliba markaad xil hayso oo mas-uuliyad hayso ah, waxaa la aaminayaa adiga inay jiraan damiir aad leedahay oo kaa ilaalinaya waxyaabaha qaar oo ku farayana inaad wax xuquuqda lagugu leeyahay fuliso, waajibaadka ku saaran aad fuliso. dadkuna ay aaminayaan maadaama uu ninkaanu madax noo yahay waa qof wanaagsan oo loola jeedo damiir buu leeyahay. saa darteed damiirkiisa ka celinaya musuqmaasuqa, damiirkiisa ka celinaya qabyaaladda uu ku xadgudbayo, damiirkiisa ka celinaya dalkiisa inuusan khiyaamin.
صدرت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوح كشاقي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا مركا وحي علماء يراهدين صدح شيء بقى لغا فائدة يوامد كوات أديك وحا لغا ربا إناد إلهي الرميسو وسيدا إلهي كافي لني آد سميسو أدون شركي كدرين وسيدا إلهي سبحانه وتعالى الرمي مركاس إلهي وحي أسوكا درايا إنو أديكنا وحاد كافي لني سكور دبايو هنون كوغو درو labadaas marka maxaa dhashay markaad adiga ilaahay rumaysay wixii waajib ahaa oo ku saarnaa ilaahay asagana wuxuu ku siiyay inuu ku rumeeyo wax allaale iyo wixii adduunyada aad mudnayd aakhirana uu ku geeyo waxa mudan tahay laguguna daray in lagu hanuuniyo oo lagu toosiyo qisooyinka cajiibka ah ee muujinaya qofka muslimka ah ama qofka ilaahay u hoggaansan dhaqanka laga rabo waxa kamid ah qisadii nabi muuse hooyadiis calayhi salaam ay ula dhaqantay waxa lagu yiri inta النبي موسى إلهي سبحانه وتعالى النبي نما أدورن هرتاد امتحان باهويديس لمريي امتحان كلمريين وحوها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ماشان مركا النبي موسى عليه السلام وحهويدي الويري ويل كان ماشاس بدأ إساقطور هنا بقين hana walwalin annagana ku soo celin doona runtii waa garan kartaa hooyo go'aanka intaas la eg inay gaarto wiilkeeda inay inta soo qaado badda isaga tuurto badda inay ku tuurto marka waxay keenaysaa inay aaminto inaysan wiilka mar dambe arki doonin oo baabi'i doono oo noloshiisu markaas ugu dambayso laakiin waxa lagu yiri in raaduhu ilayki wa ku soo celin doona sadarta ilaahay xataa markuu ka waramayay qalbigeeda iyo dareenkeeda wixii ku jiray wuxuu ilaahay quraankiisa ku yiri asbaha fuad ummi Musa farigan in kaadat la tubdi bihi lawla arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin meeshaan u socona marka waxa waaye litakuna min almu'minin nabi Muuse hooyadiis marka ay waxa samaysay oo ilaahay wacadkiisii iyo ballantiisiina ay fahamtay waxay noqotay inay u dhabayn doonto oo ay aaminto in ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhabayn doono oo uu u samayn doono iimaankaas iyo yaqiintaas qalbigeeda galay baa wuxuu u keenay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi muuse hooyadiis u fuliyo asaguna dhinaciisa uga dhabeeyo oo alla subxaanahu wa tacaala ballankii uu qaaday ahayd inaa raaduuhu inuu asagana alla xaggiisa uga soo celiyo waa kan ilaahay quraankiisa ku yiri faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra caynuha walaa taxzan ولتعلم أن وعد الله حق صدرتين مركز أذيك حق الله كدبيسو الله سبحانه وتعالى أسونا وكود بينيا والله تعالى